hay'adda badaha adduunka ee IMO ayaa tababar u soo xidhay shaqaale weynaha dekedda Berbera. Sidoo kalena waxay hay'addu shahaado nooceedu cusub tahay guddoonsiisay dekedda Berbera. Hay'adda Nordic Crisis Management oo wakiil ka ahayd hay'adda badaha adduunka ee IMO ayaa maamulka dekedda Berbera guddoonsiisay shahaado 5 sanaba mar ay bixisay hay'adda badaha adduunka IMO isla markaana lagu qiimeeyo amniga dekedaha. Ayaa sanadkan waxa la guddoonsiiyay dekedda Berbera oo sida warbixinta lagu sheegay noqotay mid caalami ah. Sidoo kalena dhinaca amniga iyo waliba shaqo wanaaga ku mutaysatay. Shaqaalaha kala duwan ee tababarka loo soo xidhay ayaa waxa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland, ciidanka laanta socdaalka, ciidanka ilaalada xeebaha iyo shirkadda DP World Berbera. Tababarkan oo ku saabsanaa nabadgelyada iyo badbaadada dekedaha ayaa lagu tababaray howlwadeenno ka tirsan dekedda. Gabagabadii kulankaasi waxa maamulka dekeduhu ay guddoonsiiyeen hay'adda Nordic Crisis Management shahaadada caalamiga ee nabadgelyada maraakiibta iyo dekedaha oo loo soo gaabiyo ISBS. sidaana waxa lagu sheegay war qoraal ah oo bogiisa uu ku daabacay maareeyaha dekedaha Somaliland Engineer Saciid Xasan Cabdilaahi. Xamse Gelle, Cable TV, Hargeysa.